السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله تعالى ما أنت وحي نكاهدنا موضوع عاد مهمة كاسي سيدي أيام وقتك قرآن ككحد سينكرا فالشيطين الموضوع عبدها وقلين وحي نكاهدنا فضلك يقيمها وليه هي قفك أي وقتك قرآن كحفظيان. والدك ubadkiisu quraanka xifdiya waxa uu leeyahay fadli iyo faa'iido badan oo aan la soo koobi karin halkana ayna ku soo koobi karin. ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri fi surati at-tur والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إلهي آيات وحو كغور رميا أهل الجنة مركا أي جنة قلان أبدك يا والدك أي جنة قلان إنه إلهي سبحانه وتعالى ويسهليشين أيوه سفر حدود وعيونا ما يسترانتو هدي والدك منزلات سر جنة كقلين أبدك سنو كهوسيو إلهي أبدك ويسا أيو كرب قاضيا هلك والدك سجوغي أيو قينيا سيدوك له هدي أي أبدك منزلات سر جنة كقلان waalidkuna uu ka hooseeyo waalidkii baa loo geynayaa oo mansalada sare ayaa la geynayaa iyadoon camalkoodina waxba laga jarahaynin oo aan laga nusqaaminaynin. qof waliba waxa uu kasbaday ayuu u rahmeeyay. marka waa fadliga ilaahi subhanahu wa ta'ala. waalid ubadkaagi hadii uu meel sare jannada ka galo oo uu mansalada ugu sarsareysa jannada galo adiguna aad ka hooseyso ilaahay wuxuu ku gaarsiinayaa ubadkaaga oo halkoodaasi iyo mansalada ay degan yihiin ayaad la degaysaa. marka fadliga weyn ayuu leeyahay. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiiska uu warinayo abu hurayra radiyallahu canhu ee uu muslim soo saaray idaa maata ibnu aadama inqataca camaluhu ila min halaath sadaqatun jaariyah aw cilmun yuntafacu bihi أو ولد صالح يدعو له. قفك مركو دينتو عمل كيسو قعي أبو رسولك يلي إلا صدح مويانه قف لبحي صدقاء أسع ليسا وجارية تصالحها مسجد بودسي أما وحو سمي عيل بوقضي أما وضو أيو بسي أي صدقاء لغو انتفاعيو انتا لغو انتفاعيو ودن أجر كيدي واو أسعنيا. sidoo kale cilmun yuntafacu bih qofkani waxa uu ka tagay cilmi lagu intifaacayo kutub ayuu qoray kutubtiisaasi oo la intifaacayo cilmigu duubay cilmigiisaas oo lagu intifaacayo waxaasoo dhani waa ay u soconayaan. aw waladun saalihun yad'u lah ama ilmo wanaagsan buu qofkaasi ka tagay oo u soo duceeya qofkaana ajarkii waa uu u soconayaa. marka fadligaasi ayuu leeyahay haddii ubadka lagu dadaalo oo khayrka kugula dadaalo. ubadka sida quraanka loo xifdisiinayo waxaynu u kala qaadi doonaa laba qaybood. qayb yar yar oo aan gaadhin waqtigii madrasad la geyn lahaa iyo qayb weynaatay oo gaadhay waqtigii madrasada la geyn lahaa. haddaba aynu u nimaadno qaybtan yar ee aan gaadhin waqtigii madrasada la geyn lahaa waxa lagu xifdisiin karaa laba hab. habka u horeeya waxa weeyaan talqiinul mubaashir in ilmihi yara loo laqimo si toos ah loogu laqimo. taasina waxa u shardiya in uu waalidkii xifdisan yahay quraanka kariimka ah garanayana ahkaamtii tajwiidka ah ama uu u qabto cid garanaysa oo xifdisan oo macallina uu guriga ugu qabto haddii uu awoodayo. tusaale ahaan maalinka u horeeya waxa la xifdisiinayaa bisinka بسم الله المهي رانا مركز هذا الأخير بسم الله الرحمن الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مالين كوهر يبسن كتحف تسيلس مالين بآيات سيدا سيئات قوة
hal sano oo joogta ah haddii aad ugu wado ilmihii yaraa oo meel fiican gaadhay qur-aankii usii diyaarsan oo xifdiyey ayaad geynaysaa madrasadii. sidoo kale hab labaad ayaa jira oo ah talqiinun ghayru mubaashir, inaad ilmihii yaraa u laqinto adiga oo aan hor fadhiisanayn. waxaad u daaraysaa moobilkaaga ama waxaad u daaraysaa sameecad ama rikood, waxaanad u daaraysaa qur-aanka kariimka ah. maalinba suurad gaaban ayaad ugu celcelinaysaa. suuratulfaatixa oo soo noqnoqonaysa ayaad u gelinaysaa. saacad 2 saacadood ayaad dhagaysiinaysaa oo joogta ah. ilmihii yaraa oo iska ciyaaraya, iska boodboodaya, cuntadiisa iska cunaya waad ka agdaaraysaa. kumana qasbaysid inuu aamuso oo dhagaysto, laakiin qur-aankaasi ha baxo, ilmaha yarna ha ag joogo. maqalkaa dhegtiisa kusoo duulaya ayuu qur-aanka ku xifdinayaa. waxaana la arkaa ilmaha yar waxyaabaha kusoo noqnoqda ee uu aadka u dhagaysto inuu xifdiyo. tusaale ahaan nashiidooyinka oo kale ama waxyaabaha waalidkiisu aad u dhagaysto, ilmaha yari dusha ayuu ka qabtaa oo waxaad arkaysaa isaga oo ku hadaaqaya. wax la barto ilmaha yarna lagu ababiyo waxa ugu wanaagsan qur-aanka kariimka ah. barakadii ayaa guriga kusoo degaysa oo qur-aanka ayaa ka baxaya. ilmihii yaraana wuu ku faa'iidayaa oo aayaadkii qur-aanka kariimka ah ayuu baranayaa, waana faa'iido aad u wanaagsan. ilmihii yaraa ee tagayay madrasadda ee waqtigii madrasadda gaadhay ee aad ku dartay madrasadda, waxaa lagaaga baahan yahay ilmaha yar inaad xil iska saarto oo aad ku dadaasho. qodobka u horeeya waa inaad la socoto ilmaha yar. casharkii muu garan waayey mise wuu gartay? mase halkeebuu marayaa? muu fiican yahay mise wuu xun yahay? inaad ilmahaaga yaraa la socoto oo aad mar walba macallinka la xidhiidho oo aad xidhiidh la yeelato. qodobka labaad inaad u samayso waqti muraajaco ah, waqti uu casharkii loo soo dhigay uu ku qaybo oo aad fadhiisiso ood la soo fadhiisato oo aad tiraa casharkii diyaari, oo aad ka dhagaysato oo aad xifdisiiso oo aad ku dhiirigeliso. qodobka saddexaad inaad ilmihii yaraa u samayso hadaf iyo meel uu hiigsado. tusaale ahaan inaad tidhaahdo jizcama haddii aad dhammayso waxaan kuu keenayaa waxaas iyo waxaas wuxuu jecel yahay. haddaad jis tabaarig intaa ku dhammayso waxaan kuu keenayaa hadiyadaasi. inaad sidaasoo kale aad u samayso oo aad ilmihii yaraa qur-aankii jeclaysiiso, hadaf iyo meel uu hiigsado oo uu ku sii dadaalana aad u samayso. inaad u ducayso waana ta ugu muhiimsan, oo aad mar walba ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u barido inuu ilaahay xifdiga qur-aanka ugu sahlo oo uu ku sugo kana dhiga kii xifdiya ee ku dhaqma. qodobka u dambeeya ugu muhiimsan aynu ku soo gabagabaynaynaa waxa weeyaan waalidku in isaga laftiisu uu qur-aankii ku dadaalo oo uu akhriyo oo uu barto. haddaanu aqoonna ku dadaala sidii ugu baran lahaa, si ilmahaagii yaraa aad ugu noqoto tusaale wanaagsan. haddaanad adigiiba akhrinayn, adigiiba kitaabkii ilaahay aanad xidhiidh la lahayn, ilmihii yaraana aad ku garaacayso oo aad ku qasbayso inuu qur-aanka xifdiyo, wuxuu isweydiinayaa waalidkaagu muxuu isagu qur-aanka u akhriyi waayey, muxuu isagu u baran waayey. laakiin hadduu ku arko adigoo baranaya oo ku dadaalaya, waxay u noqonaysaa dhiirigelin aad iyo aad u weyn. marka insha allahu tacaala aynu qur-aanka barashadiisa, xifdigiisa iyo akhrintiisaba aynu ku dadaalno.